war socotadaan isu celino gacanna horumarka iyo guusha iyo gobonnimada iyo isku tashiga baynu ku wadanaa gacanna difaaca dalkeena iyo deegaankeena wadayaal soo dhawaada meel kasta joogtaan halkan waa Cabaas Madani muuqaalkana sii share garee oo isgaarsiiye horena waa idinku sheegay haddana waa idinku ilaalaya godobteyda gelin lama haysan karo maalin gelinkeed lama haysan karo xalay baan idin sheegay muuqaalkayga aan ku duubay channelkayga Cabaas Madani waa dhageysateen ragga reer SC Khaatumo ee lagu afduubtay meesha la yiraahdo bohol haddaan 24 saacadood lagu soo deyn wixii ka dhashay mas'uuliyadda ma qaadayo arrintaasi waa laga jawaabay waxa laga jawaabay baan rabaa update siiyo reer SC Khaatumo caawa waa la hadlayaa waa la talinayaa fariimaan u gudbinaya in isgaarsiiyaan laba qodob barnaamij ku saabsan yahay wixii dhacay iyo wixii arrinta laga jawaabay iyo baaqayga ugu dambeeya arrinta muuqaalka isgaarsiiya meel dheer ka tuura geel caruur qaaday ma foga saddex nin oo marka damid baba isagu ka soo haray tiradu shalay waan khalday xalay barnaamijka ku khalday laba ahaay saddex bay ahaay laakiin mid baa dib u soo laabtay laba gacanta ku dhigeen oo ka tirsan muwaadiniinta reer SC Khaatumo niman geel jirayaala oo socota ah oo markaasi baadi doonayay xoolo ka lumay ayaa ay qabteen ciidanka jabhadda argagixisada sanam ee ku sugnaa markaa bohol sida daraadeed dadka bohol iyo degan xudun ila foweyn dhulkaas waxa ka dhaxaysay hal arin oo waxa weey wanaagsan arintaas waxa ahayd in baadida la isu celiyo xoolaha baadida la isu celiyo dadka socotada ah ee diyeysan in la isu celiyo intaas horta naruuraha kaliya ay haysteen intaas ay ahayd waxa moodaa Cabdiraxmaan Cirro oo dadku yaqaaneen inuu yahay nin nabadeed inuu ka bilaabay reerkiisii jifidiisii hoose ee habaryooniisii inuu xaabada ku shubo waxay arkay jireen Muuse Bixi oo xaabada ku shubo habar jeclayo garaxajis iyo isaaq yareeyay guraangofkaaye wali taariikhda markii ugu horeysay reerkiisu kaga bilaabay inuu xaabada ku shubo waxaana taa daliil u ah ragga muwaadiniinta ee reer SC Khaatumo ee socotada ahaa ee marka u galay bohol markii gacanta ku dhigeen hore waa u dhici jirtay waa la soo celin jiray xudun bay imaan jireen la fogeynay imaan jireen oo dhulka SC Khaatumo imaan jireen waa loo celin jiray laakiin taa waxa ka gudbay nidaamka hadda iyo jabhadda argagixisada sanam Cirro wuxuuna abaabulay oo qorsheeyay inuu halkaas colaada ka abuuro oo dadkaasi barakiciyo ciidamadiisa gacanta ku dhigay dadkii deegaanka waxa la sheegay inay isku dayeen hor istaagaan laakiin taasi suurtagal weyday oo nimanka burco loo gudbiyay mar haddii burco loo gudbiyo way maxaabiista hore lagu daray way ilaa raggu waxay naga hayaan reer SC Khaatumo ku dhawaad 547 xubnood oo ka tirsan maxaabiistii askartii ka dagaalamayay SC Khaatumo sida daraadeed annaguna waxa way kuwan aan tirada ku buuxsanaa labada nin war soo daaya lagu fariimo waaweyn baa loo diray dhagahay ka furaysteen anaga maxaan lagu yaqaanaa markaa orodka hore iyo doorka waa lagu yaqaan cararka hore iyo doorka waa lagu yaqaan annagana daanjabiska waana lagu yaqaanaa inaan idbino raggaasi markaa waxay noqotay afduub bay noqotay in la afduubtay oo burco la geystay la yiri nidaam baa la wareegay oo asnaba riwaayad adeer halka nidaam oo ka jira dawlad la yiraahdo quwad weyn oo SC Khaatumo la yiraahdo ayaa ka jirta maxaysatada iyo baadida kuwa waxa weey hadii la kuuraya diyeysan iyo kuwa socotada ah ee xudun lagu qaban jiray iyo meesha la yiraahdo la foweyn anagu waa oran karnay dawlad baa haysatay SC Khaatumo anagu soo miir qabnaa dadkaygu waa miir qabaan xaqiiqadana waxa weey kama leexdaan way arrinta marka afduubka shalay dhacay 24 saacadood baa loo qabtay waa ka soo jawaab waayeen haddaba ilaahay fadligii mid kamid ah guutooyinka sida gaarka u tababaran ee ciidanka daraawiishta dawladda SC Khaatumo ee gobolka Sanaag waxay xalay saqdhaxay gacanta ku dhigeen afar kamid ah kooxaha argagixisay nabadiidka ee u dhashay beesha Isaaq ay gacanta ku dhigeen iyo gaadiidkii ay wateen afartoodiba gacanta dawladda SC Khaatumo ayay soo galeen waxay wadeen oo ay sahminayeen mid kamid ah fariisamaha ay ku sugan yihiin guutooyinka sida gaarka u tababaran ee loo yaqaan guuto afxakame ayaa guutadaas ayaa gacanta ku soo dhigtay gacanta ayaa lagu hayaa
waxa weeye taa bedelkeedna waxaa booskoodii ay loo hayaa labadii xubnood ee afduubteen ayaa loo hayaa. waaya yaa iga hayn kara markaa? waaya ma la iga hayn karaa? durbabo macali sheekadooda waa 2 iyo 4 wey iyo gaarigoodiiba gacanta ayay SSC Khaatumo ayay ku jiraan. afduubkuna waa inoo bilowday. afduubku ila dhaqan xumada idinka horseeday oo bilaabay. afduubku waa soconayaa cid idinka fataxna ma jirto. waliba kuwa bohol degan waxaan leenahay nabadda idinka isku carcariyay kii aad doorateen aan lahaydeen isku habareeris banaa ka maanta doonayay sida habar jeclo ay maxaysatada u noqotay inay idinku u noqotaan oo bohol uu kala dareero xanuunka ay leedahay maxaysato habar jeclo laga wareysan karaa. haddii cid dayac ka dharagtay oo ay waxa weeye ay bayraha noqotay habar jeclo xanuunka garanayso oo aad ka wareysan kartaan habareerisay. marka maanta inta gacanta ugu jirto labada afduubateen soo 4 leeyahay kuma bedelin. 4 kamida kooxaha argagixiso beesha iyo doore asam ayaa gacanta ciidankiisa Khaatumo soo galay xalay gacantana lagu hayaa. maxaa faa'iiday? maxaa dheeftay? hadduu leeyahay la iro waan soo celinayna la soo celiyo. waa idin sheegay nimanka hadaan la xanuujin oo madax laga garaacin iyo doorma miirsado. xalay markaan idinku lahaa 24 saacadood baan idin qabtay. dayal iyo dhalanteed baa haysata Soomaa. dhageyst waa kan xalay fariintan xalay diray way. nimankaas muwaadiniinta reer SSC Khaatumo haddaad soo deen weydaan oo aad deegaanka ku soo celin weydaan oo sida u afduubataan ogaada idinkana xoolihiina iyo socotadiina saas loo qabanaya. haddaad soo celin weydaan 24 saacadood gudahood ogaada wixii ficilada halkaas ka dhasha idinka wax mas'uuliyadooda qaaday. ogaada baadida waraan soo celino war socotadaan soo celino waraan colaadana waa aqaana nabadana waa aqaana. dadkaas inay nabad ku wada noolaadaan waa jecla laakiin dadkayga nabad been abuura oo afka baarkiisa dadkayga inaan ku baraarujiyo waa habeenka xalay tagay weeye. haye fariinteeda waqti laga soo jawaabay kalmadda markaan la dheer ma lahayn waxa iga dambeeyaan ogaa jamaahiirtan ogaa ciidamadan ogaa qalasyadan ogaa oo aan ku kalsoonahay oo aan halkan iyaga wakiil ugu ah war soo wakiiladu kuma yihiin soo qora qalasyada military daawanaya soo wakiiladu kuma yihiin iyagan wakiil ka ah. xalay warankan bixiyay war soo celiyaan ku yiri waa laga jawaabi waayay burca waxa weey loo dhigay. hadda ogaada 4 baa loogu jawaabay maantana gacanta lagu hayo. haddii hal farda taagtan hal far dhaga far idoro hal farda taagtan 5 farood oo taaganaa 5 farood waa taaganaa. ana dad gobaan nahay gobonimada kama leexano qof maskiin oo socota in la qabto ama la afduubto xeerka dagaalka ma ah. laakiin idinka horseed idinka bilaabay imisa maxaysata leedii siday imisa socota leedii siday maanta kuwii idinka idinku soo khaldamay ee diyoobay soo barnaamijka dhigin Soomaalida oran SSC Khaatumo huwa bihaayeen maanta aniga 4 baa gacanta igu jiray taa hubsado qaata. cid aan uga daalan lahayn hal arko cid idinka fataxna ma jirto. qodobka waxaan ku soo gabagabeynayaa waan u hambalyeynaya ciidanka SSC Khaatumo ee gobolka Sanaag geesiyada aanu ku faano ku dhaadano. waxaa leenahay shaqo wacan bad qabateen goob arleysiidina wali ceeb kalamadii tigin. waxaan leeyahay guulaysta feejignaada diyaar garooba waxa weeye markasta u toghaya dhagar kasta oo cadowga ay abaabulayaan special gobolka Sanaag maan leeyahay waa ku kalsoonahay. intaas waa intaas qodobka ugu dambeeyaan ku soo gabagabeeyay waxa weeye waxaan rabaa caawan reer SSC Khaatumo in la hadlo beeraha reer SSC Khaatumo ama dhul bahanta dheh ama faqashini dheh ama madhibaan dheh ama kaski qabad dheh ama gari koomba dheh waxaan leeyahay diyaar garooba hala diyaar garoobo. dunidu xaalad kale galaysaa oo jifi hubka loo iibiyo. reeraha wali sacbuleeda ee aan wali hub badan haysan inay ishubeeyaan wali loo diyaar garoobaa dagaal aan ku difaacanno cirdigeena sharafteena dhulkeena. cadowgeenu wuxuu u soo tabaabashoosanaya waa inaga weeye inaguna waa inaynu diyaar garowno weeye. ninkii awood leh oo xoog leh baa Soomaaliya u talinaya
reeraha aan weli qoryaha lahayn ama qoryuhu ku yar yahay ma raba inaan meeshin garay laakiin reer walba oo is og yahay cid walba iyada is og hubka iibso oo hubka soo kordhiso oo hubka waaweyn soo kordhiso oo kuwa yarar badso oo diyaar garow reeraha weli aan jiidaha ciidankooda joogin oo leeyahay ta wararka Abbas Madani aan leeyahay ku soo qaadan jiidas geey reerka reeras qaatuma ka tirsan aan jiida ciidan u joogin maxay tahay waa ceeb weey ama sanaa ka joogto ama sool ha joogto ama cayn ha joogto si guud baan la hadlayaa reeras qaatuma reerka aan reerkooda jiida joogin waxa weey intaan wararka lagu soo qaadan oo aan reerkaaga la ceebeen public lagu keenin jiida isgee reerka hubka yar hubka badso reerka hubka badan adna sii badso ha loo diyaar garoobo waxaan la dagaalamana waxa weeye huwan ishuwan marka waa inaan u diyaar garoowno weyn talooyin badan baan wax u soo jeediyey maamulkeena iyo dadka marka madaxda inoo ah waxaan u sheegay waxa loo baahan yahay dalka in tababaro badan la sameeyo dadka dhalinyarada boqolkiiba 30 in waxa weeye tababaro loo diro 2 sano qofku markuu secondary-ga dhameeyo 1 sano oo tababara way yayna ku xusaatamay wax hoose sanadada soo socota wayna ku xusaatanaa 20 sano kadib dadkeena weyn la baraarujiyo oo difaac u nafsi loo tababaro weeye manhajka lagu daro shirkad waxa uu xisad wadaniyada dadka cadowgooda la barayo waa aragtiyaha aan madaxda hadda joogta aan kula talaynay insha Allah laakiin waxaan rajaynayaa dadkeena inay taa ay fahmaan anyway waxaan ku soo gabagabanayaa hal uu diyaar garoobo yaan la isdhigan war halkii kala jaamac ayaa layna gaadi hal diyaar garoobo insha Allah taala gacanna horumarka iyo guusha iyo gobonnimada iyo isku tashiga baynu ku wadanaa gacanna difaaca dalkeena iyo deegaankeena insha Allah taala qurbo joogto waxaan leeyahay hawl kama daalayaal oo wali wahoogay shuba shilinka shuba guul ma raadinaysa martaan aad farxadid guusha raadinaysid jeebkaaga ku jirtaa qaaraan ka bixi qaaraan diidow qaaraan ka bixi khayr baa